in la wada tashado dhibka yimaadana uu ku wada dhici dheeftii timaadana waa la wada qaybsan qoyska inuu hagaagana waa dan mushtarag oo ka dhaxaysa dadka inuu xumaadana waa dheri ka wada gubtay wey qof walbaba caqliga in buu ilaahay siiyey wixii qof garan waayey baa qof kale u baxa gaar ahaan raggu ereygaa raggu gaar ugu socdaa dumarka go-aanku ha dambeeyo laakiin gedgedinta iyo talada in wax badan laga siiyo ilaahay sooma dhihin wa'tamiruu baynakum bimacruuf dhexdiina tashada si wanaagsan u tashada markay taladu kaa jiq noqoto waxaa laga yaabaa gabadhu inay furto way furdaamiso aniga adiga iska badaa yaa ka cilmi iyo diin iyo caqli badnaayo aadamaa nabiyullaahi maxamed sala allahu alayh ali wasalam waxaan filayaa qof kastoo inaga mid iyo muslimi inuu qirayo qof lamid ahaa ama ku soo dhowaan kara inuusan jirin ilaahay wuxuu qadaray inaga cashar laynagu siiyey inay xaaje ka murugtay xaaskiisu u furtay yowmulxudaybiya markii uu go-aamiyey ha laga noqdo buu wuxuu yidhi saxaabadii waan xalaal noqonaynaa cumrada timaha xiirta iyagana intay arrintii naxdin ku noqotay cid istaagtaa la waayey nabigii waa amrayaa cid amarkii fulinaysa ma leh umu salama la socotayo intuu soo noqday buu umu salama u yimid wuxuu yihi maanta xaalad adag baa jirta umu salama maxaa dhacay saasaa dhacday dadkii sameeyaan leeyahay cid amarkaygii qaadanaysana ma laha dadka haddii amarkii qaadan waayaan caro ilaah iyo lacno dadku madii dhan inay ku degto sow maaha xaaladaa khatar tahay ummadda caro iyo lacno ay ku degi lahayd nabigana cala sala salaam kama xishoon umu salama inuu yimaado u waramo umu salama xalki keentay waxay tii rasuulka ilaahayow iska fududaysa arrinta adigu intaad tagto orod xiiray tiri timaha xiiro markaad bilowdo iyagaa u kala tartami doone nabigu taladii waa qaatay sala allahu alayh wasalam isagii baa xiirtay markay saxaabada arkeen inuu xiiranayo baa loo kala orotamay in la xiirto waxaa ugu muruga badneyd saxaabadii hadda la xiiray lakiin amarka nabigay diideen sal alla alay wasalam maalinkaa mixnadii iyo cadaabkii ummaddaa ku dhici lahaa ilahay umu salaam uu ku badbaadiyey cidda la tashatay waayo waa nabi maxamed sala allah alay wasalam taladeedii intee laga gaaray faa'iido ummaddii dhannayd ba ilahay badbaadiyaa laga gaaray marka xaalad murugsan bay fiin kartaa nin odayga soomaaliyeed baa laga sheegaa gabar waxaan qabay buuhi aada u caqli badan xaajo kastoo igu murugtana xalkeeda ii furdaamisa laakiin maanan doonaynin inaan ku ihahdo waadna caqli badan tahay talana waan kaa qaatayna ma doonayo waxaan samayn jiray buu yidhi markay xaajo igu murugto meel agteedaan fadhiistaa dhulkaan xariiqaa buu yihi si aan yeela garan maayo ma sidanaan yeelaa arrinta sidan igu noqotay ma sidanaan yeelaa ma sidanaan yeelaa waan calaa buu yidhi intay dhegaysato bay tiraahdaa buu yihi war saa iyo saa iyo saa iyo saa maad yeeshid ama saa iyo saa iyo saa maad yeeshid talooyinkay soo jeediysaan xalkii ka dhexelaa buu yihi markaan xalkii helan alla ilahay way taladii waad heshaan idhaahdo naga aamus waxa ma sheegaysidii intaa fadligii inuu qiru diidan yahay iyo dumar buu wax weydiiye naag buu la tashaday uu diiday laakiin wuu og yahay inay caqli badan tahay talo badan tahay iyaduu ku agcalaa taladana way u furdaamisaa laakiin bal laa yashkur innaasa laa yashkur illaah wa'tamiruu baynakum ilaahay inama amreen haddaan wax la kala faa'iideynin talada guriga qeyb badan bay kaaga fara dhuudhuubantahay waxyaabo badan aduu xaaladaad yar kacsan tahay iyadaa deganba talada in la wadaago waa qaacido asaasiya qoysku ku dhismi karo xataa go-aankii hadhow la qaato go-aan laysku qanacsan yahay oo taladii la gedgediyey qofkiina dhibkuu kuula adkaysanaya wey laakiin haddaad go-aanun iska gaarta dhibkii ka yimaada aad talo lahayn 1986 baa meel tuulo baadiye ah soo maray oo soomaali deganta xoolo dhaqatay ahaayeenoo lo-dii baa dareertay subixi markay barqadii 4 saac tahay weylihii oo meel qoraxa ku xidhxidhan ma arkay islaantii guriga lahaydoo caruurtoodu reere leeyihiin yaa waxaan ku iri weylahan maad qoraxda ka furfurtaan way ku rafaadeen waxay tihi nin baalehe ani maxaa iga galay xoolaha nin baalehe ani maxaa iga galay
hadalkii runtii aad ila khalaalaaday reerkan ay leedahay ee caruurteedii ku guursadeen ee xoolaheedii dareereen kadib baan arrintii dib u dabagalo waxaan ogaaday wax lagala tashadaan jirinba hadday tiraahda war waxaasaa ila quman hus haween yahay manaag baa hadlaysaa lagu dhihi natiijadu maxay noqotay qoraxda daydiraysa maxaa gala aniga qofkii inaad tareenka saartaa lagaa rabaa dhibka soo kula qaybsado